السلام عليكم. 10 labaatanaad ayaa qaybta naxwaha luuqadda Ingiriiska ayaa qaadanayna la soco muuqaalka. maanta waxaynu qaadanaynaa preposition words erayo xiriiriya ah. ereyada wax bil xiriiriyaan waa ereyo aad muhiim u ah. waa inaa fahantaa ereyadan qaabka u shaqeeyaan. ka soo casirka on dul saaran. on waxaa loo isticmaalaa wax dul saaran. on dul saaran. under ka hooseeya. under ka hooseeya. under ka hooseeya. over ka kore. over waxaa loo isticmaalaa wax kor ah aan la taaban karin oo kale. over ka kore. beside dhinac. beside dhinac. in gudaha ku jira. in gudaha ku jira. behind ka dambeeyo. behind ka dambeeyo. in front ka hor. hortaagan. in front ka hor. hortaagan. in front waxaa loo isticmaalaa wax hortaada istaagsan ama wax hortaagan. shay kale hortaagan ayaa loo isticmaalaa in front. ereyadan haddaadan fahansanayn waxyaaba badan ingiriiska ma fahmi doontid. ereyadan waa muhiim, aad iyo aad muhiim ah. waa inaad barataa ereyadan nabnahooda iyo qaabka loo isticmaalo. waxaynu ku samayn doonaa jimlado eri walba qaabka jimlada looga sameeyo. tusaale on ama under eradaas qaabka jimlada looga sameeyo. dhammaantood waxaynu ku qaadan doonaa casharkan casharka xiga. la soco insha allah.